بسم الله الرحمن الرحيم وضيال كسو دوادا برنامجك بندقة HBN برنامجكن جبي هamba maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa ma dhaba in Mareykanka dagaalka Iran uu kala kulmay guul daradii ugu foosh xumeyd oo ceeb huwan warbixin amurtan la xiriirta ayaa waxa lagu daabacay mid kamid ah wargeysida ugu afka dheer dalka Ruushka waxaana arrintan ka hadlaya qoraa soo bandhigaya xog xasaasi ah oo la xiriirta xaaladda adag ee Mareykanka ka qabsatay dagaalka Iran afartanka maalmood uu ku hayay isagoo Israa'iil taageeraya arrimahan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadayaan iyadoo Mareykanka laga soo warinayo taageerada dagaalkaasi loo hayay in gabi ahaanba ay ka sii liidato markii uu bilaabanayay sababtuna ay tahay saameynta dhaqaale iyo tan siyaasadeed ee Mareykanka dagaalkaasi uu ku dhaliyay dhanka ciidamada marka la eego qasaaro weyn ayaa la soo warinayaa iyadoo hadda Mareykanku uu ka fakarayo in maraakiibta dagaalka lagu reekabo gantaalada nooca loo yaqaan Patriot ee lagaga hortago gantaalada sababa lagu macneeyay inay tahay in laga hortago diyaaradaha drone-iska iyo gantaalada Iran oo ay ku weerareen maraakiibta waaweyn ee diyaaradaha dagaalka xambaara waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka war laga soo xigtay ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa in la isticmaalay 60% kaydkii hubka ee Mareykanka haddii la damacay in la soo saarana ay qaadanayso 4 ilaa 5 sano oo kale xaaladuna ay si xumaan karto haddii dagaal Shiinaha la galo hadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku andacoonayaa inuu guuleystay laakiin taasi way ka duwan tahay qiyaasaha xitaa ciidanka Mareykanka ka imaanaya saraakiisha ugu sarreysa qubarada arrimaha caalamka faaloota iyo sidoo kale qubarada Ameerikaanka haddaba macluumaad amuraha la xiriira iyo xaaladahan dagaal ee bariga dhexe ayaynu idin faahfaahin doonaa maxamed maxay ku bilaabatay warbixintu cinwaan ayaa wargeys ka soo baxa wadanka Ruushka waxa uu ka dhigay dagaalkii Iran Mareykanku wuxuu kala kulmay jabcabeedkii ugu weynaa oo Mareykanku taariikhda la kulmay sida laga soo xiganayo Vasily Zaitsev xabajoojintii Mareykanka iyo Israa'iil ee Iran ayaa waxay ahayd mid foolxumo weyn huwan oo Mareykanku soo hoyatay waxayna u dhigantaa baa yiri wixii taariikhda dhacay ee loo aqoon jiray xaaladii Suez maqaal lagu daabacay wargeyska Gazeta ee Ruushka ka soo baxa ayaa qoraagani waxa uu sharaxayaa in eray bixintaasi xaaladii Suez in ay loo isticmaalay in ay burburtay sharaftii imbaradoriyadda markaas oo dowladda Britain ay ahayd dowlad awood weyn markii qalalaasii Suez ay dhaceen 1956 ayaa waxay u muuqatay military ahaan inay ka adkaato Masar hase ahaatee ugu dambeyntii waxay ku dhamaatay siyaasad ahaan in dowladda Britain la jibiyay kadib markii dowladda Mareykanka ay ku qasabtay Britain inay dib u gurato kana baxdo Canal Suez xilligii uu wadanka xukumayay madaxweynihii hore ee wadanka Masar Jamal Abdel Nasser waa gartay waayahay maxamed arrimaha sida gaarka ah colaadan loogu xasuusto waxa kamid ah hadallo uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka oo xitaa qaar kamid ah xubnaha Koongareeska Mareykanka ay leeyihiin waa dambiye dagaal iyo hadallo bini'aadanimada liddi ku ah waa markuu yiri madaxweynaha Mareykanka waxaan tirtiraya gabi ahaanba ilbaxnimadii Iran maxay jariiradu ka tiri arrinkaasi warshaha Mareykanka gaar ahaan madaxweynaha Mareykanka waxyaabaha uu sheegayo uu ku sheegayo in uu burburinayo xadaarada wadanka Masar dhaqaalaheedana uu burburinayo dhaqaalaha wadanka Iran uuna burburinayo wadanka Iran xadaaradiisa isla markaasna uu ka dhisayo xukuumad asaga u adeegta ayaa waxa lagu sheegay inay fashil weyn ahayd Zaitsev ayaa waxa uu arkaa arrintan dagaalka Iran lala galay inay caddahay Trump in uu dagaalka galay isagoo ballanqaadiyo waaweyn oo xukun ka tuuray dowladda Iran iyo in uu qabsanayo uraniumkeeda ay tayagelisay isla markaasna xog uu ku noqon doono wadanka Iran ayaa qorshayaashiisa ahayd hase ahaatee dagaalka ayaa waxa uu ku dhamaaday isagoo hadafyadii uu sheegay midna gaarin Iran ma aysan kala daadan
waxaanad moodaa Iran in dagaalka 40 maalmood kadib in ay qodobadii ee ayada wadatay iyo rabitaankeeda in ay ku qasbayso Mareykanka sababtoo ah Mareykanka guushii uu rabo waa gaari waay. waa gartay guushii waa gaari waaye kaliya wargeysku ugama harin wuxuu leeyahay qoraagu bahdil iyo weji gabax ayaa ka raacay Mareykanka muxuu ula jeedaa weji gabaxnimada ayuu ku tilmaamay inaysan ahayn kaliya in Mareykanku uu ku guuldareystay hadafyadii uu sheegtay inuu gaari waayay sidoo kale Mareykanka waxa lagu qasbay inuu dib u gurto. Trump oo ku hanjabayay inuu burburinayo kaabayaasha wadanka Iran ayaa hadda nafka raadiyay xabad joojin waxay ahayd in uu ka dhabeeyo ballanqaadkii ahaa in uu Iran burburinayo laakiin uma aysan suuroobin. Joseph ayaa ku doodaya Iran ma aha kaliya inay u adkaysatay dagaalkii 40 maalmood socday waxay dagaalkaasi ka soo baxday iyadoo mowqifkeeda sidii hore ka xoog badan yahay wuxuuna soo xiganayaa cadaadis fara badan inay Iran hadda saarayso marinka Hormuz guuldarrada ku timid xabad joojinta in lagu furo marinkaasi ayaa iyadana dharbaxyo weyn ku ah Mareykanka wuxuuna sidoo kale Mareykanka isku dayay inuu asxaabta saliidda hoos u dhigo ayadana waa suurogali weyday waxaas oo dhan ka muhiimsan waxa weeye sida qoraagu u arko Iran in ay Mareykanka hanjabaadiisa u cadeysay in loo adkeysan karo lana iska caabin karo lana dagaalami karo lana jabin karo waxaadna moodaa adkeysigeeda ilaa hadda inuu socdo ka dhanka wadanka Mareykanka waxaana laga yaabaa in ay ku dhamaato in Iran shuruudaheeda ay sanka Mareykanka geliso sababtoo ah Mareykanka dagaal waqtigiisu dheeraaday diyaar uma aha. way muxuu marka wargeysku kusoo gabagabeynayaa warbixintiisa gaar ahaan markuu leeyahay Trump ugu dambeyntii gul buu sheegan doonaa qoraagu see u fasira arrinkaas dagaalkii iska tuurnimada ahaa ee military ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran wuxuu ku dhamaaday guul darro sida uu qoraaga hadal ku dhigay wuxuuna u arkaa qoraaga in ay tahay jabintii ugu foosha xumeyd uguna ceebta badnayd ee istiraatiijiyadeed ee Mareykanka uu la kulmo taariikhdiisa. waxaa hadda uu ku soo gabagabeeyey khabiirkani Joseph isagoo leh ma aha oo keliya Trump in uu dagaalka ku jabay hadda wuxuu bilaabayaa in uu guul u dabaaldego sida caadada u ah laakiin guul loo dabaaldego meesha ma taalo dagaalka si xun ayuu Mareykanku ku jabay ayuu khabiirkani ku soo gabagabeeyey ceebna la huwiyey. waa gartay waayahay haddii intaa warbixinta aynu kaga gudubno maxaa kaloo marka khubarada ku raacsan yihiin warbixintan ruushka ka soo baxday oo ah in Mareykanka dagaalkan laga guuleystay madaxweynaha Mareykanka dagaalkan intii uunan gelin ka hor talooyin badan ayaa laga siiyey oo la yiri Iran sida la moodayo maaha Iran Venezuela maaha Iran Iraq maaha waa dawlad awood leh saahatee xukuumadeeda lama ridi karo looma baahna dagaal in hadda lala galo wadanka Iran dadkii aarahaas watay oo dhan ama ciidamada sirta ahaadaan oo ninkii madaxda u ahaa uu iscasilay ama ha noqdaan generaaladii ku adkaystay madaxweynaha Mareykanka in uu ciidanka Mareykanka khatar gelinayo oo qaarkood shaqada laga eriyey qaarkoodna laga fariisiyey talo la'aan ma hayn madaxweynaha Mareykanka waxaa helay kibir iyo kaligitalisnimo iyo ku takrifal awoodeed natiijadeedana sida khabiirada hadalku dhigayaan wuu soo taabtay oo heer wuxuu gaaray hadda wax allaali iyo wuxuu sheego cagsigeeda ay run yihiin guusha uu hadda sheeganayo sida khabiirku hadalku dhigayo waxa weeye guul aanan muuqanin laakiin uu rabo inuu marmarsiyo ka dhigto dadka warka laga qarinayo ma aha dadka la fogura arrimaha caalamka iyo adduunka intiisa kale waxa weeye Mareykanka shacabkiisa oo doorasho isu diyaarinaya bisha November ayuu marin habaabinaya laakiin hadda
maadaama dagaalkii madaxweynaha Maraykanka uu dhowr goor ku hanjabay inuu xabajoojinta kordhin doonin, hadda waxay ku dhamaatay guuldarradiisa. waxyaabaha caddaynaya waxaa ka mid ah inuu hadalladiisa dib u laqo oo xabajoojintii kordhiyo waqti aan la cayimin. macnaheedu waxa weeye sida khabiirada hadalku dhigayaan, dagaal kale uma babac dhigi karo. marka adiguba caqli baa leedahay, carar maxaa dhaama ayay Soomaalidu tirahdaa. waaya maxamed, daawadayaashada waxay u jeedeen muuqaal maraakiib dagaal oo fara badan oo diyaarada ka kacahayaan. midkan waa mid kaloo ka mid ah maraakiib saddexa oo waaweyn oo Maraykanka gobolka bariga dhexe ka jooga. diyaarada duqeymaha istiraatiijiga ayuu isticmaalay, B2 B52. diyaarada lagu sheegay raadaarada inay ka dhuntaanna waa la sheegay inuu isticmaalay. awoodda weyn ee Maraykanka sidee loogu tilmaami karaa in laga guulaystay oo Iiraan ay gacanta sare leedahay? qofka arrintaas loo dhadhacinaya. su-aashaasi waa su-aal xasaasi ah. Maraykanka sidaas ayaa la ahayd in maraakiibtan waaweyn, diyaaradahan istiraatiijiga ah ee wax duqeeya, in uu Iiraan ku muquunin karo. Iiraan waxay ka shaqaynaysay sida khabiirada dhan isku raacsan yihiin muddo ka badan 40 sannadood, siday dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa, dagaal xeeladaysan oo aanan diyaarada la adeegsanayn, laakiin gantaalo guuxooda ka dheereeya iyo diyaarado daroonis ah oo ay Iiraan samaysatay oo khatar ah oo lagu tijaabiyey dagaalkii Ukraine. la arkay sida ay waxtar uga noqdeen meedaanka, ayadoo hubka dhinaca Ukraine uu ka imaanaya Maraykanka iyo wadamada Yurub. la arkay siday waxtar u leeyihiin. Maraykanku wuxuu lahaa saddexda wadan ee cadowga ah, Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan. Iiraan ayaa fudud, Iiraan ayaa buuran kartaa, laakiin xaalkii siduu moodayey waa noqon weyse. 4 maalmood ugu horeeyey waxa la laari wixii uu quwad lahaa ayuu isticmaalay, oo ay ku jiraan gantaaladaas waaweyn oo hadda dadka u muuqda, oo ah kuwa dhulka hoostiisa godad ku jira lagu burburiyo. Iiraan agabkeeda buuraha hoostooda ayay magaalooyin ka dhisatay, agabkeeda militariga ku guulatay. Iiraan khasaaraha gaaray ma aynan qarin. weerarkii koowaad markii hogaamiyaha lagu jiray way sheegtay. ninkii kale ee muhiimka ahaa gudoomiyaha guddiga amniga qaranka Cali Larijani ayadana way sheegtay. isbitaalada, iskuulada iyo waxyaabaha la burburiyey waa sheegtay. Maraykanka laakiin khasaaraha soo gaaray ilaa iyo hadda la qarinayo waxaa ka mid ah xerihii militariga ee ku yaalay wadamada gacanka oo muddo 30 sano ah oo Maraykanku agab dhisanayay si uu hareereeyo wadanka Iiraan, ayaa waxaa laga dhigay sida ay afka carabiga u dhigeen waxaa la yidhi sidii bal la daaqay oo kale, kal casfi lma'kuul, bal la daaqo oo kale laga dhigay. raadaaradii, xeryihii militariga, hoteeladii u cararay, safaaradihii, goobihii kale ee shirkadihiisii iyo danihiisa gaarka ahaa, ama shirkadaha ha noqoto teknolojiyada ama bangiyada ha noqoto. Maraykanka falcelinta Iiraan wax uu la dhigo iyo wax lamida taariikhda lama hayo. tan kale oo ayadana aan meesha ka maqnayn waxaa weeye agabka militariga uu Maraykanka kaashanayo maraakiibtan waaweyn ee diyaaradaha qaada. waxaa hore u ishaafalateeyey Xuutiyiinta oo dhowr goor 1 sano iyo dheeraad la dagaalamayey. Iiraan waa la ogaa in ay iska caabin karto. haddana waxaa muuqata inay aagii ka soo carareen sida khabiirada qaar ay hadalka u dhigayaan, oo meelo ka fogfog ay joogaan xuduudka wadanka Iiraan. inkasta oo weli Maraykanku ku andacoonayo inuu cunaqabatayntii hayo. Iiraanna maanta maraakiib ayay kaxaysatay, isku dayey si dhaafsiisan xeerarkii ay u dejisay inay ku gudbaan. waxaana muuqata Maraykanka waxay ahaydba in madaxweynihiisa hadda uu maareyn la'yahay guul darrada. guul ha sheegto, laakiin xaqiiqada meesha jirtaa waxay tahay Iiraan inaynay hadalkiisa u baahnayn, shirkiisa u baahnayn, xabajoojintiisa u baahnayn. dagaalka Iiraan qaabkay u dagaalamaysay waxa uu ahaa markii lasoo weeraro inay isdifaacdo. siday isu difaacday
cid walbaa markhaati ka ah haddana waxaa moodaa maraykanku inuu dhaawacyadiis leefleefayo sida khabiirada qaar ay hadalku dhigayaan gaar ahaan horaa loo saadariyey maraykanka dagaalkan inuu ku guuldareysan doono guuldaradiina dhab ayay noqotay Trump keliya ayaa aaminsan inuu guuleystay laakiin dhinac kastoo laga fiiriyo militariga dhankiisa agabka burburay kharashka baxay wadamada saaxiibada gacanka oo ay ka mid tahay sutaga imaaraadka carabta 30 bilyan oo dollar ayaa 40kaas maalmood ka khasaaray xataa maraykanka waxay ka dalbatay lacag barataara maraykanka xagee lacag ka keenaya asagaa ku jira 40 trilyan oo deyn ah waxaadna moodaa shidaalkii inuu cirka isku shareeray oo maraykanku uu ku hanjabayay inuu soo dejin doono xaaladda dhaqaale waxaa la saadaalinayaa ee ka dhalata dagaalkan in saamiintiisa ay muddo dheer socon doonto waaya maraykanka gudihiisa marka maxay ka saameynaysaa halkii iiraan la rabay in shacabkeeda kaco mudaharaadyo waaweyn ay dhigaan xukuumadda ay afgembiyaan hadda waxaa khatar ku jira madaxweynaha maraykanka mudaharaadyo waaweyn ayaa soo baxay intuu dagaal ka socday oo malaayiin qof magaalooyin kasta laga soo baxay haddana haddii la arko in guuldaradiisa ay soo ifbaxday waxay u badnaanaysaa doorasha la qabanaya bisha November xisbiga dimuqraadiga in dhibaato weyn uu la kulmi doono dadka maraykanka inay ka cabanayaan sicirka shidaalka mudaharaadyo looga soo horjeedo weliba dadkii asaga taageersanaa oo aaminsanaa in mudnaanta koowaad maraykanka la siiyo ayaa u arka in uu ka leexday hadafkaas oo uu Israa'iil mudnaanta siiyey su'aalo badan ay yimaadeen xiriirka in wax la iska weydiinayo maraykanka oo Israa'iil leeyahay Israa'iilna maraykanka marka ay timaado aaraha dadka lagu ururiyo oo dhan waxay tilmaamayaan in lala yaabay sida shacabka maraykanka ay hadda Israa'iil uga soo horjeedaan gaar ahaan dhalinyarada maraykanka marka waxa la yiri wuxuu cagta saaray wadadii ay ku burbureysay imbaradoriyadiisa waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo